odayaasha iyo waxgaradka beesha Cabdillah Noolays ee Daanweyne oo kulan ballaaran ku yeeshay degmada Bursaalix ee gobolka Mudug ayaa codsi dheer kadib waxa ay baaq ku aadan dilka Allah u naxariistay marxuum Maxamed Cabdullaahi Cabdi u dareen maamulka shirkadda Hormuud oo ay markaasi ku eedeeyeen dilka Allah u naxariistay askarigan kaas oo horaantii bishan lagu dilay magaalada Muqdisho. odayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa ku celceliyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka howlgasho kana jawaabto baaqa iyo codsiga ka soo yeeray odayaashan beesha Cabdillah Noolays ee markaasi Daanweyne waxaana markaasi hadaladoodii kamid ahaa 15 Oktoobar 2024 waxa ciidamada ilaalada isgaarsiinta shirkadda Hormuud ay si kaas ah u toogteen Maxamed Cabdullaahi Cabdi oo ahaa nin dhalinyaro ah kana tirsanaa ciidamada booliska militariga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhacdadaas kadib shirkadda Hormuud waxay qiratay dilka marxuum Maxamed Cabdullaahi iyagoo oo isugu marxaati furay been abuur aan sal iyo raad lahayn welina u raadinaya dambi aan jirinin xuquuqdiisa si ay ugu duudsiyaan mana jirin wax ka baxsan adeega ay bixiso shirkadda Hormuud ee u tagay xafiiskooda marxuum Maxamed Cabdullaahi kaasoo ay ismaan dhaafeen shaqaalaha shirkadda kadibna ay toogteen ilaaladu. laanta dambi baarista CID-da iyo xeer ilaalinta dowladda federaalka ah ma jirto ilaa iyo hadda cid ay maxkamad u soo taagtay dilka Maxamed Cabdullaahi oo ahaa marxuum ka tirsan askarta una adeegayay shacabka Soomaaliyeed laguna dilay xaq darro sidoo kalena loo geystay gaf lagu duudsinayo in uu helo cadaalad. haddaba beesha Cabdillah Noolays waxa ay ka codsanaysaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ah cidda uu hoostaga ciidan ahaan Maxamed Cabdullaahi Cabdi oo ahaa askari ka tirsan ciidamada booliska militariga dowladda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida in si degdeg ah cadaalad uu u helo marxuum Maxamed Cabdullaahi. sidoo kale beeshu waxay u soo jeedinaysaa xildhibaanada golaha shacabka iyo senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala deegaanada Puntland oo uu ka soo jeedo marxuumku inuu cadaalad helo in ay isu taagaan cadaalad u raadinta marxuumka iyo in la maxkamadeeyo dambiilayaashii sida arxan darrada u dilay Maxamed Cabdullaahi. ugu dambeyn beesha Cabdillah Noolays waxay ka digaysaa cawaaqib xumada ka dhalan karta xaq duudsinta marxuum Maxamed Cabdullaahi Cabdi maadaama dadka Soomaaliyeed ay wada degan yihiin dalka deegaanada kana wada nool yihiin deegaanad walbana sidoo kalena ganacsiyadoodu isu furan yihiin. haddii aan la helin arintaas cawaaqib aan loo helinin cadaalad cawaaqib xumada ka dhalan doonta waxay mas'uuliyadeeda qaadi doonta shirkadda Hormuud. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu shirkan galabta u qabanay saxaafadana aan ugu yeeranay annagoo ah beesha Cabdillah Noolays ama qabiilka la yiraahdo Daanweyne maxruumkii ku dhintay magaalada Xamar oo askariga ahaa oo ciidanka dowladda ahaa oo ahaa booliska military laguna dilay xaq darrada iyo sida aan sharciga waafaqsanayn arrintiisa baan waxaan rabnaa inaan galabta ka hadalno. ninkaas in askari oo ahaa nin muwaadin oo ahaa nin dowladda u shaqeynaya dadkiisa iyo dalkiisa u shaqeynayo oo ahaa waxaana lagu dilay xaq darra lagu dilay. waxaan rabnaa inaan la hadalno dadka arrimihiisa ay quseynayaan oo u horeeya madaxweynuhu Xasan Sheekh Maxamuud oo ku xigo Xabsi Cabdi Barre oo ku xigo wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga iyo dhammaan inta ay qusayso baarlamaanka taliyaha booliska inta ay qusayso waxaan ka doonaynaa inuu ninkaas cadaalad helo. ummadda waxaa deeqda cadaalad baa deeqda haddayna cadaalad helinna waxay noqonaysaa guri jabhadeed bay noqonaysaa oo gelgelina ummaddu ku kala tagto. ninkii askariga ahaa oo u dhimanayo oo muwaadilka ahaa oo u taagnaa oo u labisnaa haddii sharci darra inta lagu dilo
haddana wuxuusan ahayn lagu tilmaamo asagoo xaqiisa lagu duudsi yahay waxaa ka imaanaysa cawaaqib xumo iyo in ciidanku burburo oo kala tago wax dawladda u soo istaaga ay waayaan waxaanu leenahay oo cod dheer iyo cod gaabanba aanu ku leenahay ninkaas waxaanu codsanaynaa hay-adaha ay qusaynaysa arrimihiisu inay cadaaladda inay la maraan inuu cadaalad helo dadkaa in la soo xiro in la mariyo sharciga in la mariyo baanu codsanaynaa isagana ayadaa deeqda maxruumkaas annaga qabaayil ahaanna ayadaana deeqda haddii aan la helin arrintaa ayada ah oo aan la helin cadaalad aan la helin dadku waa is yaqaanaa hormuud meel kasta waa ka shaqaynaysaa mana aha ninkiisa inta la dilo inay haddana shaqayso ma suurtagelayso manaad shaqayn doonto wax shaqaynahaya hadday istuseen ninkaasu inuu sidaa ku maqnaado oo ku dhumo ma suurtagelayso ma oggolaan doonno waxaa ka imaanayana cawaaqibxumada ka timaadana mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh shirkadda hormuud annagu mas-uuliyadda waxaanu saaraynaa shirkadda hormuud waxaanu leenahay oo ku noqnoqonaynaa codkaaga ama waa lagu dheeraystaa ama waa lagu noqnoqdaa arrintaa dib ha looga fiirsado dadaal badan ha loo sameeyo ha loo istaago hay-adaha ay quseeyaan arrintaa waxaa ka qabteen ninkaasu wuxuu dhintay 15 bishii 10aad buu dhintay ilaa iyo iminkana wax laga qabtay ma jiraanin dadkii uu ka dhashay oo xuquuqdiisa doonayay oo waalidkii ka mid ahaayeen oo qabaayilkii ka mid ahaayeen darbiyaasha xamar bay waqtigu kaga dhammaad waxaanu leenahay oo dadka sida gaarka ninkaas ugu matala baarlamaanka si gaar aan farta ugu fiiqaynaa arrintaas inay wax ka qabtaan inay u istaagaan inuu ninkaasu cadaalad helo annaga ayadaana deeqda haddaan la helin foolxumadii ka timaadda oo cawaaqibxumadii ka timaadda waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaysa dadkii falkaa geystay oo hormuud kow ka tahay baa cawaaqibxumadii ka timaadda qaadanahaya waxaan leenahay arrintaa laga feejignaado isku dhac iyo burbur Soomaaliya uma baahna meeshaasuna waxay horseedaysaa isku dhac iyo burbur iyo foolxumo aan weligeed harin iyo dagaal sokeeyo cusboonaada bay horseedaysaa arrintaa ayada ha laga daayo marinka la marinahayo oo marxuumka lagu iftiroonahayo oo la leeyahay wuxuu ahaa horar ahaa oo xaqiisa lagu duudsiyahayo haddaan laga dayn cod dheer iyo cod gaamba waxaanu ku leenahay cawaaqibxumaa ka imaanaysa hormuud baana qaadanaysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنغو بيشا عبد الله نوليس دانويني waxaan halkaan u fadhinaa inaan kaga hadalno dhacdo ka dhacday magaalada Muqdisho 15kii bishii tobnaad oo ah in askariya oo ku dhintay magaalada Muqdisho xarunta shirkadda hormuud la oran jiray maxamed cabdullaahi cabdi kana tirsanaa ciidanka booliisiga military ee ka howlgala magaalada Muqdisho ninkaas oo si xaqdarro ah oo gardarro ah ay u dileen shaqaalaha shirkadda hormuud isagoo ninkaasi wax dhiba aan ka geysan xaruntaas ee u yimid adeega ay bixiso shirkadda hormuud isla markaana markii ay shaqaalihii si khalad ah ay u dileen isticmaalay waxyaabo ay ku duusiyaan xuquuqda ninkaas oo ay yiraahdeen ninkaas wuxuu ahaa nin qaab burcadnimo hawsha u galay arrinkaas oo ah arrin foolxumo ah oo aan ka mid ahayn dhaqamada islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo qofku haddii dib waa dhacdaa laakiin markii ay dib dhacdo geeri ay dhacdo dhaqanka Soomaaliyeed iyo shuruucda islaamka midna kuma jirto in qof islaam ah dhibkiisa la doosiyo sidaas daraadeed waxaan rabnaa in uu helo maxamed cabdullaahi cabdi uu helo cadaalad uu ka helo dowladda Soomaaliya dhexdeeda
ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhigga hay'adaha kaleeto oo wasiir taliyaha ciidanka booliiska hay'adaha nabadgelyada ee u xil saaran cadaaladda madaxna ay hormuudna u yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu in la helo ninkaas uu helo cadaalad si ay u suurto gasho wada noolaanshaha bulshada Soomaaliyeed iyo dadka u adeegaya bulshada oo ah ciidamada qalabka sida oo meesha qofkii u adeegaya ummadda in dad shacabi inta iska dilaan haddana ay ku iftaroodaan inay waxa ay si ay u duubsiyaan ninkaas xaqiisa iyo dhigiisi wax yaani ummadda anfacaya maaha wax dawladnimada anfacaya maaha sidaas daraadeed waxaan si xushmo leh uga codsanaynaa madaxda aan kor ku soo sheegnay iyo kuwa kaleeto aan meesha uga tagnayba in la raadiyo xuquuqda askariga Soomaaliyeed ee u shaqeynayay dalkiisa iyo dadkiisaba inuu xuquuq helo si ummadda Soomaaliyeedna ay wada noolaansho iyo wada deganaansho u hesho qofka askariga oo dalka iyo dadka u shaqeynayana aan loo fududaysan dilkiisa iyo dhigiisa shirkadda Hormuud oo dadka u dhaxaysa oo adeega u fidisa waa ayaan daro in ay dadkii dambiilayaasha ahaa oo ninkaas sida yaani gardarrada u dilay inay isku gudubto dhigiisa waa ayaan daro dadka Soomaaliyeed waa isku mid waa wada nool yahay meel kasta waa wada maraya qofkas waxa la rabaa inay si nabadgelyo ay ku wada noolaadaan aan qofna lagu xadgudbin haddana ninka ciidanka xoogga ammaanka magaalada Muqdisho ka shaqeynayay oo dhibaato laga soo maray in lagu iftiroodo oo dhigiisa la duursiyaa cid qaadan kartaa ma jirto dawladda waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan ka codsanaynaa inaan askarigaas sida gardarrada loo dilay lana anfinayo in aan dhigiisa aan hadar u soo noqon inuu cadaalad helo dawladda mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay dadka cadaalad baa deeqda dadka xilal ma wada deeqaan lacag wada siyaa ma deeqaan mana ka heli karaan dawladda laakiin ummaddu waxaa deeqa oo ku filan qof kasta inuu nabad iyo cadaalad helo warahmatullaahi wabarakaatuhu meeshaan galabta waxaan ku fadhinaa qabiilka Cabdulla oo isla yiraahdo ama si daawina ummaddu u taqaan oo naanaysiisu Cabdulla daawina yahay waxaanu warfaxaafeedka intii odayaasha iyo horeeyeen ku hadleen iyo ummadda ay qosaysan tiriyeen iyo in walba heekalkiisa ay magacaabeen adigu ku darmooyeen hadalkaas nabadeen odayaasha hore noo yiri waxaan kaliya oo raacinaya ninkaas maxruumka oo lagu dilay Hormuud محمد عبد الله حق قبيل ومدلين ومد قبيل كي قبيل يكون مدلين ومد أبي قبيل ومدلين ومد تركيس قبيل ومدلين دول ما يبقى لقدلي هالو قدلي دتك والدلي ترى وان كودلي كرسين معي مالك على الدكان الله معي خربوط كورسي يا ريتا وانا ان كودلي كنا حقسين معي مالك كدعدي الدونك ما أنا المقل ما أنا أرق ما نسورت جالي دونته وحرمنا أنت عرفك لو قلفتي أرنت إني عدالة كمرة وحلا يراها خوش لو دكتور أرنتاس أنا لفظ ما عصنا إننا هدي أرنت على سكول هذا أما وحلا قبل نيكو حد لك كمان ركبه كدش قواعد حمادي كتيمة هذا يدي بتاعي كتيمة دي يدي كتيمة هذا هربود بايسكله هرمود يرجع كنا يرجع ما هذا هو يكره رجع كشيء يرجع ما هذا ماله شو جنبه يا إسكاله أنا أقول حاجة كما حرنا ذلك حق ويشان مدوسينه حاجة واسكب حلنا وأنا اسكب حلنا حاجة إن الكويش وهو اللي بحاجة بركب حلنا وحقود ضرة حوار وحقود ضرة لكن أنا أقول حاجة يجعل كهرم بينهم وحنا نكور إنك ربي يا أنت
dowladda aanu carabka lagu dhuftay baanu ka dhursugaynaa ayaan ka warsugayna haddii ay miro dhali weydo arrintaa la isku lado haddii ciddii dishay ninkaaga ninkii dilay waa dayn weeye waa dayn haddii nin la dilo waa dayn ninka la dilay waa dayn baa maqan reerku ku maqaya waa naqaan dadku nagaaqba waa maqan hormood waa naqaan hormood baa anagu noo dhex yaalla hormood dhexdoodu noo yaalla waxaan xod dheer iyo cod gaaban baan ku leenahay arrintaa waxaa laga bedelo oo waxaa laga qabto oo siday nabadgelyada ku leeyahay si xaraasha ku tahay ha loogu qumo iyadaa loogu qumaan codsanayna iyadaa codsanayna wixii ka yimaada anagu shaqo kuma lihi waxaa shaqo ku leh ciddii waxaa geysato falkaa geysatay oo garab dhiibinaysa yaa eedeedu beri iyo saadaba ayaday u taalla ayay ag taalla assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh